waa diyaaradaha qumaatiga u kaca ee Mareykanka oo ku degaya dhismaha safaaradda Mareykanku ku leeyahay Kaabul si ay u daadgureeyaan diblomaasiyiinta iyo shaqaalaha xaruntaas kaga sugan. waa dhacdo dunida soo xasuusisay 30 Abriil 1975 markaas oo xoogagii Fiidnaamta waqooyi ay la wareegeen Saigon oo xarun u ahayd dawladdii koonfurta Fiidnaam ee Mareykanku taageeri jiray, taas oo Washington ku khasabtay inay si halhaleela shaqaalaheedii iyo diblomaasiyiinteedii magaaladaas uga soo daadgurayso. madaxweynihii dalka Afghanistan Ashraf Ghani ayaa ka cararay caasimadda dalkaas ee Kaabul kadib markii ay hareereeyeen oo gudaha u soo galeen magaaladaas dagaalyahanada ururka xaq jira ee Taliban oo xoog kula soo wareegay dhammaan gobolada dalkaas. dunida oo dhan waxaa fajac ku noqotay sidii fududeyd ee ay Taliban ugu suurto gashay inay muddo ka yar 2 toddobaad ku jabiyaan ciidamadii dawladda Afghanistan oo dhammaan 300 oo kun askari, kuwaas oo dalalka reer galbeedku ku qalabeeyeen hub casri ah. waxaa socda wada hadallo u dhaxeeya dawladda Afghanistan ee jarka ka sii laadlaada ee madaxweynaheedii baxsaday iyo Taliban, kuwaas oo looga gol leeyahay sidii ay dawladdu si nabad ah isugu dhiibi lahayd iyadoo aan wax dagaal ka dhicin caasimadda. afayeen u hadlay Taliban oo dunidu u aqoonsan tahay urur argagixiso wuxuu sheegay inay dagaalyahanadoodu gudaha u galeen magaalada caasimadda ee Kaabul si ay uga hortagaan billoqo halka ka dhacda, maadaama ciidamadii dawladdu ay baneeyeen oo aysan jirin hadda cid ilaalinaysa nabadgelyada. tani waxay bahdil iyo guuldarro taariikhi ah ku tahay Mareykanka oo ah quwadda ugu weyn dunida oo muddo 20 sano ka badan awoodiisa ciidan iyo tiisa dhaqaale ku bixiyay sidii uu Afghanistan ugu dhisi lahaa dawlad isku filan oo iskeed isaga caabisa kooxaha xaq jira ee Taliban marka uu ka baxo dalkaas. waa diyaaradaha qumaatiga u kaca ee Mareykanka oo ku degaya dhismaha safaaradda Mareykanku ku leeyahay Kaabul si ay u daadgureeyaan diblomaasiyiinta iyo shaqaalaha xaruntaas kaga sugan. waa dhacdo dunida soo xasuusisay 30 Abriil 1975 markaas oo xoogagii Fiidnaamta waqooyi ay la wareegeen Saigon oo xarun u ahayd dawladdii koonfurta Fiidnaam ee Mareykanku taageeri jiray, taas oo Washington ku khasabtay inay si halhaleela shaqaalaheedii iyo diblomaasiyiinteedii magaaladaas uga soo daadgurayso. Mareykanku wuxuu hadda taariikhda halbog kala gelayaa midowgii Soviyeeti oo hadda ka hor ku jabay duulaan gardaraaca oo uu ku qaaday Afghanistan, isagoo markii dambe lagu khasbay inuu dalkaas dib uga gurto walow dawladdii uu ka tegay ay dhowr sano sii shaqaysay, halka dawladdii Mareykanku dhisay ay duntay isagoo aan weli si buuxda uga bixin Afghanistan. warbixinta kooban waxaa inii soo jeedinayay anigoo ah Shiino Culay. waxaad kala socoteen bogga aan ku leeyahay Facebook iyo channelkayga YouTube. tan iyo intaan warbixintan la mid ku kulmi doono waxaan idinku dhaafayaa nabad diino.